السلام عليكم أصحابتي وإذن سلامي كسو دوادا يوتيوب channel كيغا فاهمون فاني هدان ugu cusubtihiin subscribe no saar hadii aan la joogteen nala sii jooga dhiirigelinta furta waxaan kula halaagta iyo sheerka hanaga iloowina asxaabi maanta meesha waxaan ku haysanaa zabiib madowga ah iyo caano koob caano ah marka faa'iidooyinka uu zabiibka uu leeyahay ayaa raba maanta inaan idinkaga faa'iideeyo adinkana aad ka faa'iideysataan caafimaad ahaan qaybta caafimaadka zabiibku wuxuu u fiican yahay maskaxda ilowga badan iyo maskax xanuunka iyo maskaxda daalka marmar maskaxda daalay dareemaysaa maskaxdu u fiican yahay khaasatan ilowga waayadan dadka dhan waxaa kusoo batay yacni ilowga zaa'idka ah marka ilowga zaa'idka xitaa marxaladuu leeyahay dad waxaa jira maskaxdooda baxayso haddana soo laabanaysa iyo qaar oo waxay hadda sameeyaan ilowaya marka maskaxda maasha allah tabaaraka allah aad ugu fiican yahay iyo wuxuu u fiican yahay dhiig la'aanta iyo tabar darrada qofka dhiigiisa eberka ah oo markasta dhiigga ka dhaco iyo tabar darrada daciif inaad dareemaysid sidoo kaleeto iyo wuxuu kale u fiican yahay wadna xanuunka dadka wadna xanuunka zaa'id wadnaha u jiidmaya aad ugu fiican yahay maasha allah ka faa'iideysta oo waxaan ku dhahay soo brobeeya caafimaad aad ka helaysaan waxaan ku dhahay maasha allah tabaaraka allah koobkan caanahan raba inaan ku shiidano marka maxaa dhahay kulli caano uu maasha allah kusoo baxa in lagu shiito wax kastana ku darsan kartaa badanaa dadka cuntada ku darsadaan laakiin marka caafimaad ahaan isticmaalaysa yaa inaad kaligiisa cuntido oo asaga wax xabad ah cuntid oo iskaga baashaashid marmar yaa inaad caano ku shiidatid caafimaad ahaan markaa rabtid inaad maxaa dhahay u cuntido ku caafimaadid laakiin midka cuntada lagu daraayo kaleeto waa iska baashaal ma garateen marka waa kaasaa haddeertaan zabiibka 100 gram waaye kolley qof walba maxaa dhahay qiyaasta markaas waan ku shubanay koobka caanaha ahaa alaabtan waan isku soo shiidaa sokor uma baahno waan isku soo laabaneynaa asxaabe maasha allah kale iyo laab waa u jeedaan zabiibkii caanihiisa ay kusoo baxeen khaasatan dadka maxaa dhahay miisaanka leh aad u fiican yahay yani miisaanka way iskaga jari karaan oo maxaa dhahay qureecda ama cashadoo kaleeto bedelkiisa waxay gashanayaan caano iyo zabiib marka cunada oo culus maxaa dhahay qofku markuu rabo inuu miisaan iska dhigo waa inuu iska joojiyaa waxyaalaha fudud oo healthiga leh oo caafimaadka oo jirkaadana maxaa dhahay maasha allah nafaqo ku siinaya marka waa inaad ku dadaashaan ama habeenkii ku casheeyo kaleeto zabiib iyo caano ama subaxii ku qureeco qadada fuul waa iska cuni kartaan marka waxa maasha allah lagama sheekeyn karo waa kana kal iyo laab asxaabay maasha allah u jeedaan koobkeeni oo zabiibkii caanaha ahaa saas ku soo baxay marka ka faa'iideysi wacan